mashiinkan iibiyaha otomaatiga ah automatic teller machine waxaa markii ugu horeysay laga bilaabay dalka Ingiriiska 27 Juun 1967 waxaana hindisay ninka u dhashay dalka Ingiriiska ee lagu magacaabo John Shepherd Bourne waxa uu maalgelin ka helay bangiga Barclays Bank inta wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa mid ku fiday caalamka haba lagu kala horeeyay Soomaaliya waxa uu ka bilowday isticmaalka mashiinka iibiyaha ee otomaatiga ah sanadkii 2014 waxaana dalka keenay Premier Bank oo ka mid ah bangiyada caalamiga ah waxaana sidoo kale isagana keenay bangiga International Bank of Somalia IBS adeegan waxa ka faa'iideystay in badan oo ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana looga maarmay qaadashadii lacagaha oo ay ka imaan jirtay dhibaatooyin fara badan sida uu sharaxayo Cabdirasaaq Cali Warsame oo ka mid ah maamulka sare ee IBS macaamilkeena si marka ay u helaan serviceyada adduunka ay ka heli jireen oo wadankeena hooyo dhaxdiis ka shaqeynaya ayaa waxaan u keenay ATMs-kii xarumo fara badan iyo meelo fara badan buu maanta wadankeena hooyo ka yaala sidoo kale dadka banaanka ka imaanaya ee kaashka gacanta ku soo qaadan jiray maanta kaarkoodii ay banaanka kala yimaadeen oo isticmaalaya ayaa maanta ka dukaamaysan karaan dhammaan xarumaheena oo dhan meel kasta oo joogno hadda Muqdisho kaliya wuxuu yaalaa 10 meelood ka badan buu yaalaa hadday noqon lahayd airportka hadday noqon lahayd hoteelada airportka gudihiisa ku jira hadday noqon lahayd xarumaheena sideeda magaalada Baydhabo magaalada Kismaayo iyo magaalada Garowe oo gobolada xataa ku sii fidnay qof walba oo mastercard wata ama keena wata ama mid kale oo banaanka yimid uu isticmaali karaa wana ka adeegan karaa xarumaheena sidoo kale qof kasta oo wata visa card sidoo kale asna uga dukaamaysan karaa ama uma baahna inuu lacag soo qaado dad badan baa ku nastay maxaa la yiraahdaa oo runtii ka helay faa'iido fara badan oo u fududaatay in kaashkoodii si sahlan oo casri oo aad safe u ah ay uga helaan wadankii hooyo iyo dibadaba Axmed Xuseen Maxamed waa macmiil bangiga IBS wuxuuna ka sheekeynayaa waxa uu ka faa'iiday isticmaalka mashiinkan meesha maanta inaan ka dukaamaysta ayaa u maada bangiga ma sha Allah aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay anaga macaamiisha oo bangiga IBS ka midnahay wax badan ayuu noo qabtaa bangiga IBS dal iyo dibad qaasatan marka dibadaha tagto qaybta FIB-da ayaa lagu marsiinaa waa lagu ixtiraamaa meeshaada ka dukaamaysanay wax walba FIB-daas ku saabsan lagu qabanaa anaga waxa way ganacsatada daanahay iyo ummadda Soomaaliyeed qaasatan lacagta cash ayaa qaadi jirnaa hadda cash waa iska dhaafnay qaabkana oo isticmaalnaa meel alaala meesha tagno ayaa u isticmaalnaa Aisha Nur Ahmed waxa ay qayb ka tahay dhalinyarada isticmaasha kaarka masterka ee Premier Bank laguna isticmaalo mashiinka iibiyaha otomaatiga ah ee automatic teller machine waxaan ka mid ahay samarka Premier Bank waxaana Premier Bank wuxuu bixiyaa adeegyada mastercard-ka kaasoo inoo suurageliyay inaan wax badan kaga iibsano magaalada ani ahaan wuxuu iga caawiyay jaamacadda dhiganay inaan buugtayda si qaab online ahaan aan kaga iibsado taasoo iiga saaciday wax badan haddii ay noqoto shoppingska iyo haddii ay noqotaba inaan kaga iibsanayo magaalada Premier Bank waa bankiga kaliya ee wadanka keenay mastercard ugu horeeyay waana uga mahadcelinayaa Premier Bank wuxuu inoo suurageliyay inaan la jaan qaadno wadamada caalamka Axmed Nuur Maxamed Cabdi madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank ayaa faahfaahinaya isticmaalka in macmiilka isticmaala mastercard-ka laga bixiyo Soomaaliya uu meel kasta uu tago uu isticmaali karo Premier Bank waxa la wada ogsoon yahay inuu yahay bankiga ugu horeeyay ee dalka ka hirgeliyay adeega mastercard sida aan wada ognahay mastercard waa hay'ad Mareykan ah oo siisa bangiyada caalamka oo dhan laysan in ay muxuu ahaa sameeyaan kaararkaasi oo ah mid ay aqbalayaan dhammaan ganacsiyada kala duwan ee caalamka haddii ay yihiin muxuu ahaa hoteelo haddii ay yihiin shopping lagu sameyn karo online internet-ka macnaha xataa looga sameyn karo muxuu ahaa in waxyaabo looga soo iibsado waxyaabahaas oo dhan marka Premier Bank markii ugu horeysay oo laysankaas uu dalbaday wuxuu ku dalbaday bangi Soomaaliyeed magac Soomaaliyeed iyadoo marka muxuu isagoo gacan ka helay marka bangiga dhexe oo marka wax allaale iyo wixii shuruudo ah oo ay hay'adaas Mareykanka ku xirtay bangiga oo bangigu buuxiyay shuruudahaas oo dhan qofkii aanan buuxinin macnaha
lama siinayo laysankaas ilaa shuruudahaas aad buuxiso. mashiinkan iibyaha ee otomaatiga ah ayaa wuxuu qayb ka noqonayaa horumarka dhinaca tiknoolajiyadda ee ku soo kordhaysa dalka, waxaana qayb ka qaadan doonaa horumarka dhinaca dhaqaalaha.